حضر الحولية إن شاء الله فضيلة الشيخ أحمد حسن الخضوري، وأنت ضمن مكانه الشيخ أحمد الخضوري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa ilaahay ayaa mahad ku leh in aan fadhino rawdatan min riyaadi aljanna, sida uu nabigeena yihi calayhi الsalaatu wasalaam: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوها. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ beeraha jannadu maxay tahay? qaale wuxuu ihi xilaqu dikri. ilaahay wuxuu mahad ku leeyahay in aan fadhino ashraf buqca oo ilaahay masaajidadiisa ah oo masjidkiisa ah, oo uu yidhi nuurka ilaahay manbiciisu waa masaajidada. allahu nuuru الsamaawaati wاlأrض mahalu nuurihi kamishkaatin fiiha misbaax. almisbaaxu fii zujaaja, aلzujaajaةu kaأnnahaa kawkab duriy yuuqadu min shajaraةi mubaarakaةi zaytuunaةi laa sharqiyaةi walaa garbiya yakaadu zaytuhaa yudiiء walow lam tamsashu naar nuurun calaa nuur yahdi allaahu linuurihi man yashaa wayadribu allaahu alamhaala linnaas wallaahu bikulli shayin caliim. nuurka ilaahay uu sidaas inoogu sheegay meesha uu ka soo burqado waa guryaha ilaahay fii buyuutin adina allaahu an turfaca wayudkara fiiha smuh yusabixu lahu fiiha bilguduwi wاlaasaal rijaalu laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikri اllaah waiqaami الصalaati waإiitaaءi الzakaa yakhaafuuna yowma tataqallabu fiihi اlquluub wاlabsaar. ilaahay baa mahad ku leh. waxaa kaloo aan mahad u celinayaa dadka masaajidkan camiro iyo culimada joogta oo maaragtay iisoo fariin diray in aan muxaadaro ka jeediyo. in badanna ay dhalinyarada ay igu soo noqnoqdeen iyaga oo yidhi culimmada iyo dadka masaajidkaa joogo waxay jeclaan lahay inaad muxaadaro jeediso. iyagana waan ku mahadinayaa. markaa kadib ikhwatii waxaa la ii dhiibay ama la ii iqtiraaxay mawduuca inuu noqdo muhimatu lmuslimi fii hadihi alxayaa. qofka muslimka ah waxa laga doonaya ama ulajeeddada laga leeyahay noloshan inagu hadda aan ku noolahay. marka taasi wax caaba ma saarna, way iska caddahay muhimmada la inooga jeedo. awalan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ina yidhi: afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa turjacuun. waa la ina weydiiyey, waxaa la yidhi ma waxaad u malayseen, ma waxaad moodaysaan in aan ciyaar idin abuurnay? saasay idinla tahay. marka qofka mu'minka alla ma aha sidaas.
waan garanaynaa hadda ilaahay markuu ku weydiiyey ilaa waxaa la istifhaam baa la yidhaahdaa war ma waxaad u malaysay in laguu abuuray ciyaar marka qofka mu'minka jawaabtiisa waa la garanayaa uu bixinayo wuxuu leeyahay maya rabbiyow ciyaar iima aba abuurin wa annakum ilaynaa laa turjacuun waxaan garanay marka ciyaarna looma abuurin allah subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ina yidhi ayaxsabu alinsaanu an yutraka sudaa insaanku ma wuxuu maleeyey in la iskaga tegayo oo la dhaafayo isaga oo baylah ah sudan waxaa weeye waa baylah waxaan lala joogin xoolaha marka la baylihiyo soomaaliya oon la raacin oo markaa inuu waraabuhu galo way dhici kartaa marka waxaa la yidhi ma waxaad u malayseen inaad baylah tihiin haddana iyadana waa la diiday oo waxaa la yidhi inaydan baylah ahayn oo sidan la idinku dhaafayna waxaa lagu garanayaa sida marka aayaddu ayaxsabu alinsaanu an yutraka sudaa alam yakun nudfatan min maniyin yumna uma kaana calaqatan fakhalaqa fasawaa fajacala minhu zawjayni adakara waalunha alaysa dalika biqaadirin calaa an yuxyiya almowta macnaha waa la idinla socdaa wey waxaa kaloon aan arkaynaa allah inuu yidhi wamaa khalaqna aلsamaaءa wاlأrda wamaa baynahumaa baطila baaطilku waa maxay waa sudantii oo kale waa cabaskii ciyaartii oo kale waxaan ula jeedo laga lahayn miyaad u malayseen baa la yidhi wamaa khalaqna aلsamaaءa wاlأrda wamaa baynahumaa baطila dalika danu aladiina kafaruu sidaa waxaa maleeya oo inaan sudan iyo cabas iyo baatil iyo inaan nahay oo la inoo abuuro muhiimadeennaba ay sidaa tahay waxaa maleeya cabasan waxaa u maleeya aladiina kafaruu dalika danu aladiina kafaruu fawaylun liladiina kafaruu min annaar am najcalu aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati kaalmufsidiina fi اlard am najcalu lmuttaqiina kaalfujaar marka haddii la yidhaahdo adduunyada waa iska sidaa waxay noqonaysaa qofkii toosnaa iyo kii xumaa wixii dhan in la simo marka taa ma jirtaa layidhi haddaan mar muslimiintii nahay oo aanan ogaanay inaan baatil naloo abuurin baylahna naloo abuurin ciyaarna aan naloo abuurin maxaa nalaga rabaa marka wixii nalaga doonayo oo muhiimadeenna ay tahay taas baan rabnaa inaan ogaano marka haddii aad rabto inaad ogaato qur'aanka o dhan horta wuu inoo sheegay waxaa weye inagu qur'aanka allo iyo sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yaa inoo ah tiir aan cuskanno oon khabarka saadiqa ah meesha laga qaadan oo runta ah waa iyaga markaad indhayso qur'aankii iyo sida la inaga rabo waxaa muhimmada ama ulajeedada qofka muslimka ah loo abuuray waa saddex weeyaan saddexdaasaa wax alla wixii kaleeto oo dhan ayaa ka farcamay saddexda marka ilaah alla isagaa noo sheegay wuxuu yidhi maxaan markaan idin abuurayey maxaan idinka rabay waxaa la yidhi saddexdaasaa laidinka rabaa waa naskii qur'aanka ahaa saddexdaa marka intaanan u gelin yaa waxaan rabaa in aan ogaano qofka mu'minka ah iimaankiisa qiimaha uu ku fadhiyo waxaa weeye qof kastoo innaga hadda ah waxaan arkaynaa waad joogtaa yacni waad joogtaa inaad joogto waad is aragtaa marka aad isweydiiso marka tolow waabad joogtaaye yaa ku keenay yaa ku abuuray yacni haddana qofkii waa la waayayaa yaa kaxeeyey xaggeeduuse aaday muxuuse ku dambayn marka waxaa weye waa su'aalo qofka muslimka ah walow ilmaheenna yarna ha ahaadee way u caddahay caad kama saarno shalay ma aanan joogin maantana waan joogaa
berrina waan dhiman xaggeensa ku dambayn marka qofka muslimka ah jidka iyo jawaabtu labadaba way u cadda jidku wuu cad yahayoo allah inoo sheegay kayfa takfuruuna billaahi wa kuntum amwaatan fa axyaakum uma yumiitukum uma yuxyiikum uma ilayhi turjacuun shalay mi idan joogin allah idin abuuray marka allah ayaa wuxuu sheeganayaa inuu koonkan iyo caalamkan iyo adigaba ku abuuray wax kale oo sheeganayo oo dhanka ku haysta ma jira de allah abuuray dadkan haddana waa la dhimanoo qof diidi karaay ma jiro oo allahu yatawafa alanfusa allah isagaa ma arag dadka oofsada kadibna waxaa la inoo sheegay laga bilaabo markii qofka la dhigo qabriga ilaa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir qofka muslimkaa way u caddahay markii la weydiye yaa ku abuuray allah i abuuray maxaa lagu abuuro lagaa rabay waa taanidi moogta muhimat lmu'min yaa ku abuuray allah i abuuray muxuu kaa rabay saddexda aan sheegi doono xaggeed ku dambayn waan dhiman maxaa ku xigi qabriga saadii la iga dhaqaaqo kabaha jaanqaadkooda waan maqli laba malag baa imaan waa lii weydiin man rabbukaa laga bilaabi waa imtixaan markaasaa waxaa weye imaa in qabriga rawdatun min riyaadi aljanna wa imaa xufratun min xufari jahannam inay labadaa midig isu gedino markaa kabacdi caalamulbarsakha qiyaamadu yayna dhicin ayuu muxuu ahay tamaninayaa kii mu'minka ahaa kii kalena soo hormari buu leeyahay oo wuxmoodi inuu raaxaysan doono markaa waxaa ku xiga siraadkii iyo miisaankii iyo bankii carafo maxaa meeshaa maxsharka la istaagayey qoraxdii la soo dhaweynayey xisaabkiiyo miisaankii isku xiftii fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinih way u caddahay marka midaas taas ah bal u fiirsada ilaan hadda waxaa weeye ulajeedada aan ka leenahay qofka mu'minka oo dadkeena muslimiinta ah jidkaa cad iyo iimaankaa saabidka ah waxay ka faa'iidaysteen tuma'niinadan ad arkaysaan alwujuuhu nayira way ishubaan waxaa caalamka markaad tagto caalamka waxay ku nool yihiin walwal iyo walbahaar yacni qof aadan garanaynin hadda adduunyada wax ka maqan ayaa isdilaya wuu intixaarayaa muxuu isu dilayaa talow waxaad ogtiin hadda wakti sano laga joogo khilaala usbuuc yaa waddanka faransa 3 nin oo iyaga agtooda la waaweyn cumdatu baariis iyo mid kale oo ra-iisul wasaare ahaan jiray iyo mid kale oo isna saasoo kale ah unbaa mar kaliya isdilay yani isagaa nafta iska qabtay mid yani bustoolad madaxa iskaga qarxiyo iyo mid suncaba iyo mid maarata ismarjiyada maxaa dhacay marka waxaa weeye nafta wiilkeennaa yar ama gabadheennaa yar ay garanayso allah i abuuray sidaa jidkaa uma cadda noloshii qiimaheedii waa garan waaye ruuxdan aad arkaysa khaaliq bay ku xidhan tahay marka la leeyahay alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub waa sidaas oo kale waa qofka markuu muhiimada loo abuuray uu garto marka sidaa daraaddeed yaa allah subxaana wa tacaala waa kii qur'aanka ku yidhi waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankaa waa ciriiri nolol ciriiri ah waxaa dhici karta berigi hore waxaa la isweydiin jiray war ninkii ilaahay ka jeedsado nolol ciriiri ayuu ku nool yahay qur'aanku muxuu u leeyahay soo iyaga gaalo orobiya america meel ay joogaanba soo iyaga nicmadu ay ka badatay ma ah taasay dadku isweydiin jireen laakiin hadda xaqiiqo intii dhex tagtay iyo inta wax koog iyo inta xiriir la leh waxay og yihiin bankiga ciriiriga iyo isdilka iyo waxyaabaha ay ku nool yihiin nin baa kitaab qoray oo culimada muslimiinta ka mid ah
وولبا أقول يهن وتختروا والدكتور مصطفى محمود ليلى هذا وطن كان مصاري وبس ومرنا شوع النغضي مركز وحيب وذي قرأ كتاب ليلى هذا لماذا رفضت الماركسية ونعي عن وصافة وبسين وهو كشا كينا يا دولة لهن اسكندنافيا dadka ay u yaacaan Sweden midda la leeyahay Suwed ayuu ka sheekeynaya marka wuxuu yiri waxay ka gaareen hor u kac iyo taqadum dadka qaarkood ubadkooda sideeda oo imaan doono yani waa ubadka la dhali doono ubadkiisa sideedaad waa sideetan yani qarni wax u dhaweey ama sideetan sano way ka badan tahay yani ilmaha la dhali doono يا وحيدا وحرام أصيب بجني تدو وح أبرر لها ما شكوهين لها وحي أعني لها وحي اسكت تختارين لها وحي أضم وعديار جيل جيل تاس والوجه مرة لقنا قابو ومع ذلك مركي تراكوب للسميي الدنيا انت نفسك كقبطه او انتحار بعرب الويل هذا او استشو iyaga ayaa u badan Suweyd ayaa u badan baalay maxay ku noqotay waxa haya oo xagga ruuxda ala bidkilaahi fadma in alqulub majirto muhiimadi Allah abuurayna ma ora garanay marka sida daraadeed marka ummadaha islaamka iyaga oo la diriray iyaga oo la isku fidneeyay dagaal sokeeyo iyo gaajo iyo cudur iyo wax walba haddana ay iska noolyihiin وحدنا أي معرفة قتل ليان ووجهه وطلاليه والله أي كحرينهن وحاول مهمة لقلي أي جرسين وحي جرنا يان معرفة الدنيا إلينا أهين محطبي أما الناس اللي غفر الله يقدم بيتين معه حاول الدنيا ما لنا وحبال لهي ما لنا واللواي الله مال بالديار جنة كولي هاي قلبي يسادق المرء أنا بذكر الله تطمئن القلوب والصدع بينما يدي وحي أهريا لما جداها مركي أي أمي روحي يا قلبي والول يا والبهار أي وحي كسوة طوريا بقل طبق يمغاي قولي ككوة أما صدر أما أفرطا مركا تصير وكون كبو حقوق بربرا يا الناسا وحال الشيء يا دولة لها قاركوت لحدا بقلكي لحدا كريني هردنا يكون سحران محال المهمة له دي الدنيا اللي قالها أيين الدريمين وحانوصل نقولنا مركة مهمة المسلم في الحياة محال إلى قد دون يا مركة مركة محانا لقفها بقى كو الله إنه الشيء وحول يري وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة مهمة أبوه الرسوات قرصي محايتها هاي وخليف خليف نوامح ووكيل وكيل نوامحي وكسيتم هذا الله يا وحلو اسمه يا مركم مايا وحاويان وحا الله سبحانه وتعالى مركو كون كان أبوري وهو أبوري إنك والتوبنا هاي عارف بني آدمك استقع أي عقل للسيئي عقلي أنا وحالي لهذا ومناط التكليف يعني وحال إلى كلفي ولولا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنسان هو حنباري إنه كان ظلوما جهولا محال عقل أيوليه تاترادت انت كلو خلقية يا الله سخري يا كو انتفاعيا كتنا وين يربى مرنا فريسين مرنا وكعين وتسخير من الله مركا خلافة للشيء معناها الله تركها أبوري إلا الباطل وما أبورينه إن أن خليف كان نقولنا تعسوي مركا خلافة دي وحا آيات فيري علماء دين إسلامك وحي كقاتين أمت مال هذا يكون الشهي كده أو أيوه الجيران عقائدك نصب إمام من عدل وواجب دين إسلامك أو يعني وحاوي خليف أما الرئيس أما أمير أما واحد طهربة قف
ودتك كالهجة في خليط من مرض فوضكم ما هي الجليسه هذا فوضى waxaa asla wax ku suuroobi ma jiro marka sidaa daraadeed xukunka ugu horeeyo oo inaga doonayo waa inaan khaliif ka noqono dhulkan kaa waa muhiimada koobaad marka khaliifnimada waxay rabtana waa arki doonaa muhiimada labaad ee alla inoo abuuray waxaa weeyaan waa cibaadadana waan arki doonaa muxuu yidhi allah subxaanahu watacaala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مركوا عدة عبادتنا جينا نفهم على ذاتكم مركينا دين أين فهمي جود أين هما اثنين عبادة دي ليرانو وحاسوا الإسلام مركبة مدحة إلى وسود الجسور أركان الإسلام كأما شعائر الإسلام يعني توحيدك صلاة صومك حجك زكاة هي عيدها يصاف وقلب ما رأى هذه يعني هداد عباده عبدا وصفنا عبدا هذا جدك ما عرفت جدك مركي لا من لغده وحال أرنا يا ومعبد يعني جدك لا من مركي وتكسب وياه مركا كاليترى وكان ركتي مركا وحاول جدك أصلا سلولوه وياهي يا وحال الدنيا أوامرت إله طن إلى كلا أفلسه مركب العبادة مركب لازم كالغوث فصيله وحي أرانيا التذلل والخضوع التام لله رب العالمين مركب صلاة كلمة أوامرت إلهي عقيله شريعه أخلاق وحوالبا وإنا الله قدم بيت الله أركض أنا ويسرب الله عرمته تأثير بعض وعباده وقرآن كائن الشارع متى كالي وحاب أركيسا الله بحوله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأكم في الأرض أنشأكم استقع يا إذن أبوري في الأرض مركب حالي واستعمركم فيها حال وجه إلى مركب واستعمركم فيها وحال وقت هذا الجميستان مركب ودمال الجميستانيين أما عالم الإسلام هذا أما kuwa kalaba ha ahaadeen waxay isku magacaabeen isticmaar iyagu marka gumayste iyo muxuu ahaaye huzaah kuwa soo duulay iyo inay isbahaan ma rabaan magac fiican bay isu yeeri waxay leeyihiin waxaan idinku nimid in aan idiin camirno dhulkiina ayaan u nimid macnaheedu waa ta isticmaarka aad maqli marka alla markuu leeyahay wastacmarakum السين والتاء للطلب هي علماء يراهدان سينك او وس تاء سينك يا تاء وحال إنا عصبي إنا دولك أن كنا لها عمرنا عمرني ومحال لو عمري هذا وحال لو وحن إنه باهنا هيا لو عمري مركا مهمة المسلم كلا لي واد جرسي عبادة الله والخلافة في الأرض واستعمار الأرض مهمة أركان اللي نقربه وصدح باب وانقرني وحادع المركة انت عن الولي عن تفصيل قليل امورت ويت اللي ما توصنا سيلو توصنين وحاول تبكي مسلمين تأها الله سبحانه وتعالى uu abuuray koonkan oo dhan way gaabiyeen waanu u noqon doonaa oo waa suurowdaa cibaadadii qaar ka mid oo shacaa'irka iyo wax waaynu haynaa khilaafadiina waan haynaa oo hadda ummado un qaar meel ku noolo degan oo taasoo kale way jiraan waxaanu ka takhallufnay cimaaratu alardi wastacmarakum fiiha ووحن وقنها القرآن كأن كريم كأه مركي تراكوب لغو سمايو آياته تكريم كأه بقولكي وحال يرشن يتضبات تن وحيكهد ليان قرآن كافي رجل ليان عالم كافي قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون سيروا في الأرض
فتكون لهم قلوب يعقلون أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده آياته هذا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه marka inaga dadka muslimiinta marka isha taa u marito maxay ka hayaan quraankood 7% waa eber maxaa wax alla irbad ma samaysan karno waxaana rabnaa marka inaan noolaano adduunka aan khaliif ka noqono taa marka waa dib u dhac baynama waxaad arkaysaa kuwii gaalada ahaa oo ilaahay diiday yaa naqabu fi lbilaad adduunkii oo dhan bay gacanta marka saa ugu qabteen dhaqaalo iyo farsamo iyo teknolojiya iyo wax walba wixii awood ay lahaayeen waxay keeneen marka inay dadkii islaamka ee xaqa inay ku gumaystaan oo ay kaga xoog badnaadaan oo ay ku fidneeyaan gaaladiina iyagana waxay diideen ilaahay inay caabudaan allah nicmadiisi way la soo baxeen wastacmarakum fiiha si muxuu ahay aad u sarraysa ayay u fuliyeen laakiin khilaafadiina inkastoo mid ilaahay raalli u ka yahay ayna ahayn nidaam ayay ku socdaan laakiin iyagana cibaadatullaahi baa laga waayey marka adduunyadii way dheeliday maxayna ku soo noqon kartaa yacni dadka muslimiinta ana inay saddexdaa muhimo ay u istaagaan kuwana marka diinta la gaarsiyo aan u soo noqono markii allah uu yidhi subxaana wa tacaala inii jaacilun fi lardi khaliifa markii hore waa la fiicnaa nebi aadam nabi buu ahaa intii ka dambaysoo dhan ambiye ayay ahayd bini aadamkii asalkiisii waxaa laga abuuray laba shay oo cajab leh waa inaad u fiirsataa waxaa laga abuuray dhoobo iyo dhul wuxuu u baahan yahay wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo meeluu seexdo iyo wuxuu xidho iyo wuxuu guursado iyo wuxuu ku safro adduunyada waxa looga baahan yahay o dhan wuu rabaa dhinaca marka wuxuu ugeed yahay ama uu ka shabahaa oo aan kala mid nahay sida xayawaanaadka intaasoo dhan way rabaan waxay cunaan bay rabaan waxay cabbaan way rabaan meelay ku hoydaan way doonayaan inay isdalaan way doonayaan hadday jiradaan in la daweeyo way rabaan wahaakada inkastoo inta maaragtay dharka ah ay dhici karto ilahay inuu bini aadam ku fadilay laakiin intaa waa wada qabnaa waxaa marka weheliya intaasi waxaa ka sababoobay wax la yidhaahdo yani sidii xayawaanka qofki inuu caroodo inuu marfarxo inuu wax dilo yani marka intaasoo dhan wuxuu ka shabahaa sidii dugaagii libaaxi iyo shabeelkii iyo dhurwaagii iyo dawacadii wax cunaysa ay iskaga mid yihiin halkaa marka dhinacaas wey dhinacna waxaa weeyaan wanafaka fiihi min ruuxi faqacuu lahu saajidiin ilaahay ruuxdiisii oo latiifa ah oo maaragtay yas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbi la yidhi ayaa dhinacna ku jirta bini aadamkii mar hadduu sidaa yahay hadduu muhimmadiisii uu garto loo abuuray wuxuu la dhaafayaa malaa'igta oo la inoo yani tilmaamay oo la yidhi cibaadun mukramuun laa yasbiquunahu bilqawl wahum biamrihi yacmaluun kuwaas wuu la dhaafi waxaad ogtihiin culimadu iyo yani axaadiista kulli waxay tilmaamaysaa ululcazmi min arusuli in ay ka fadli badan yihiin malaa'igteeda kuwa kiraamka ah sida jibriil iyo mika-iil iyo casraa'iil iyo kuwa la yaqaano ambiyadaa ka fadli badan marka bini aadamkii markuu jidkaa ruuxdaa ilaahay iyo nafaxaadkaa markuu maro malaa'igtii buu la dhaafay markii intuu halkaa muhiimadaa uu garan waayo oo xaggii bahiimadii wax la cuno iyo wax la cabo iyo meel yani lagu hoydo iyo wax la guursado markuu caqligiisa oo dhan ku soo koobo oo taa marka si uu gaaro wixii la arko uu dilo oo jiiro wuxuu noqonayaa sida xayawaankii oo kaleo waa kan qur'aanku ina leeyahay in hum ilaa kalancaami bal hum abal wa ulaa'ika hum alghaafiluun saasuu noqonaya marka xayawaankii bal xayawaanka wuu ka sii liidanayaa waa sida saasoo kale le waar ficlan waa saas waa culimadii saas alimaam shaafici oo kale yani baydada shiciroo cajiiba ayuu leeyahay oo uu leeyahay
نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذئب يأكل اللحم الذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أنا أقول عن عينه ووقت حنبا الوجلة وقت حن هي الوجلة والله وقت أوحن مجره إنك أياحن سنة درادة الله سبحانه وتعالى حديث القدس والحكومة لا تصب الدهر فأنا الدهر لا تصب الدهر فأنا الدهر مركز سنة وحاولان بن آدم تمركز عدو مهمة وقران وايو وحامل وحوش ودليا أسفل السافلين إنهم إلا كالأنعام بن آدم تمركز سنة وصدح لا شيء أي نكسر بيني الله سبحانه وتعالى سفي عنه قصوري وحويا لي هو الجيدانيو وعدم كوة ومهمة سيئة الجكسيان رمى يكوون كالمينيو بلو في الصهدة يعني كونا وحي رمى لنا المهمة على العكس صارتات أمراته اختيار